horta anaga bulshadeena Soomaaliyeed qodobka ugu dambeeya markaan fiiriyo yani dad wax dhaqaalaysta in la noqdo oo wax aad iyo aad muhiim u ah waxaad arkaysaa umadeena ama maxay tumaatay mujtamaceena ama shacabkeena inta badan dakhli ayaa soo gala dakhligaasi wuxuu ku soo galaa xisaab la'aan wuxuu ku baxayaa xisaab la'aan mar haddii wax ay ku soo galaan inaad wax dhaqaalaysatid waad ku qasban tahay waana waajib waayo adigay wax kuu taraysaa haddii maanta xoogaagii aad heshid haddaadan kala oo aad maxay tomaat waxyaabaha baahiyaha daruuriga ah ku baxaya maahane waxyaabaha aan baahiyaha daruuriga ku bixin laftigooda haddii il gaar ah lagu eego oo la manage gareeyo oo la maamulo oo la dhirindiriyo oo maxay tooy dhaqaalahaasi lagu xisaabtamo mar walba ayaa meesha waxa imaanaysa in bulshadii wax dhaqaalaysanayaan waxna ay helayaan حتى هدي بركة مالين أي خد على شغل الآن أما نبكي إلهي ما قدر هدي ويمادو سويحي أي دقالستان مركزي أي أوبح حصدان لكن سهدي أي نقطة وحي له لبا ضبك على وشوفها يا هدي اللي يراهدو وأن وحب الله دقاليسن حسابتنا الآن ماشي أي تمادو بالشداسي عصري كان هذا الجراء لما جان قاعد كريسو واللي قلنا دي بدعسنان أي كجرايان مركب بالشدة الصوماليات أما الشعب كبا وحال جربها مركب إن يكون دلالان هرت وحدة قاليسيجا هذه ما أنت حوجا lacag yar ku soo galayso lacagtaasi waa inaan laba u kala qaadaa baahiyaha daruuriga ah iyo waxyaabaha aan daruuriga ahayn waxyaabaha daruuriga ah waa 1 2 3 4 waa inaad ogtahay ka bacdina waxa aan daruuriga ahayn aad ka leexatid oo maxay heeto maartay intii ku soo hartana aad dhaqaalaysatid xitaa shirika ka baxaya waxa muhiim ah inaad ku bixisid si xisaab ay ku jirto xoolo حساب لعاني ويلومان أستاذ فاحم ومحسنتها أستاذ أنا أصير راعي قضب كأكده واجسي مركي وحلا دخل استلليه واجب كدولة الصارن سيدا نقولنا وحي تهاي وعيقلين إن السيساب بالشدة ومهم وقابكي وحد قاليسن لهين حد كره waxaan xasuustaa ama bijira barnaamij salaam bank ee sameysay oo ah cunugo yar in dhaqaale meel loo dhiga si marka dambe uu qaangaar noqdaa ee jaamacadii ka soo qalin jibiya kaydkii abi uu dhigay inuu shaqo abuur ku sameeyo marka barnaamijyada noocaas oo kale ayaa baahan yahay in la sameeyo ee lagu wacyigeliyo bulshada ee ku dhiiradaan si jiilka soo aabaha hadeer jooga ama waalidka hadeer jooga si uu ugu qabsan lahaa cunugoodii soo socda ee jiilka dambe inuu wax ku qaban karo marka barnaamijyada noocaas ayaa waxa loo baahan yahay inay dawladdu abuurto oo inay ummadiina iyadana ay wax dhaqaalaysata waxa laga ambaqaadayaan isdhihi karaa barnaamijyada noocaas ee wacyigelinta ma santahay